Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Xukuumadda Hirshabelle ayaa deeq raashin ah ku wareejisay qoysaska abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool tuulooyinka Bari iyo Bananey oo labadooda hoos yimaada magaalada Tanjowhar ee caasimadda dowladda Hirshabelle. Dadkan ayaa horey sidoo kale waxaa beerahoodii u saameeyay biyaha fatahaadaha webiga Shabeelle, isla markaana nasiib ay u waayeen in mar kale ay tacbadaan beerahooda. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ee ku nool tuulooyinka Bari iyo Bananey ayaa Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka dowladda Hirshabelle kaga mahadceliyay deeqdan maanta ay gaarsiisay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ana waa Muuse Cumar, Wasaaradda Gargaarka waxaan oo keenay maanta saliid bariid. Waa ku mahadsannahay, haddana waxaan u baahannahay wax oo kalanta aan oo qabatiin tuulada Bari waa aragnay, waa mahadsantiin. Saalax Cusmaan Jibriil oo ah odayaasha tuulada Bari. waxaan halkan ka sheegaynaa deeqda Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka waxaynu u deeqeen raashin oo ka kooban waxyaalo badan oo raashin aynu soo deeqeen. haddana waxaan rabnaa Hirshabelle haddana waxaan ku codsanaynaa inay saas isi ka daraadan inuu soo taageeraan. waxay inoo keeneen gargaar oo bini'aadanimo ah oo ka saabsan dhacdadii dhacday oo biyaha iyo dhibaatooyinkii oo nahaayo aan wada keeni bariis, saliid, sokor oo markaas oo cayawan oo waxtar leh. haddana waxaan u baahanahay haddii Ilaahay ka raali noqdo inuu Ilaahay nooga soo qaado waxyaalo badan. waa mahadsantiin, waanu dadaasheen, wax filaneen baan oo keenteen oo haddana soo kor dhacdeen tuulada. waa ku mahadsantihiin, waan mahad celini. Raxiim waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Wasaaradda Gargaarka Hirshabelle waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol oo noo keentay raashin oo markaas oo dadka oo gaareenin oo iska hadgaaban. waxaan ku cusubnaynay in raashinka noola soo kordhiyo waqti oo xaalkiisa ku xunaan ku jirnay. biyihiina oo baxay buqdii aan weli aan kabsalaanay. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Bari iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdishiikh Xandow ayaa dhankooda ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayay. marka hore waxaan u mahad celinaa Alla subxaanahu wa tacaala. marka xigto walaalaheena Amisom saaxiibadeena nagu soo deeqay 16 tan oo isugu jirto bariis iyo saliid iyo sokor. sidoo kale waxaan u mahad celinaa Wasaaradda Gargaarka dowladda Hirshabelle oo kaalin mug leh ka qaadatay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan shacabka loo qaybinayana waxaan leeyahay ka faa'iidaystaano. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno deeq macaawina ay bixiyeen walaalaheen Amisom taas oo tiradooda gaaraysa 16 tan. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka gargaarka ee dowladda Hirshabelle kaas oo maalmahan dhan ku mashquulsanaa sida uu loo soo gaarsiin lahaa tuulooyinkan Bari iyo Bananey 16 tan. waxaan leeyahay mudane wasiir aad u mahadsan tahay dadaalkiina si laabo dhammaan. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka dowladda Hirshabelle Cabdimahad Qorgaab ayaa ciidamada Amisom kaga mahad celiyay deeqdan raashinka oo ay soo marsiisay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Xukuumadda Hirshabelle. maanta waxaa inoo suura gashay inaan qaybinno raashin naga soo gaaray Amisom Sector 5 qaybteeda Jowhar oo ku soo wareejiyay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Xukuumadda Hirshabelle. waxaan uga mahad celinayaa marka labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinayaa garab istaaga ay garab istaageen dadyowga ay abaartu saameysay ee reer Hirshabelle gaar ahaan reer gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan maanta u qaybinay raashin gaaraya ilaa iyo 16 tan oo raashin ah oo isaga kooban saliid, sokor iyo bariis. runtii raashinkanu aad ayuu u yar yahay, laakiin waa raashin ciddii la siiyay la dhihi karo maxaa la yiraahdaa kaalmo un baa la siiyay oo waxba lagu kaalmeeyay. aad baan uga mahad celinayaa anoo ku hadlayo afka xukuumadda Hirshabelle, sidoo kale intoodna ku hadlaya Wasaaradda Gargaarka Hirshabelle ku hadlaya. aad baan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad, sidoo kale intood tuulada Bari iyo tuulada Bananey
labada tuulo ayaa ka faa'iideystay deeqdii gargaarka aheeday ku jirtay gacanta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin garab istaagiinana waan idinkaga mahadnaqaynaa qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe waxaa ka jirta abaaro saameeyay dad iyo dunya intaba iyadoona ay u baahan yihiin xilligan in gargaar bini'aadanimo la geersiiyo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Hirshabelle TV, Jowhar.